Assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin waa walaashiin Hinda kanaalka igala socotiin waa Simply Hinda maanta waxaan idin la wadaagi rabaa potato fingers ama baradho ama bataati fara loo ekeysiiyey haddana waxaan u guda gelaynaa sidii aan u sameeyay aniga iyo waxyaabihii aan ka sameeyay waxa u horeeya u baahan tahayna waa bataati ama baradho oo si isla eg aan u soo jaray qiyaasta aan isticmaalayna waa 500 gram biyo qabow ku jiraan hadda cusbo yar aan ku daray kadibna waxaan ku darayaa qaando saliid ah waxay ka caawinaysaa inaysan isku dhedheegin hadhow markii qaboweyso waxaan isku soo noqonaynaa markii ay soo karkarto inay soo bislaato baradhada ama bataatiga haddana waa kana baradhadii diyaar noqotay waxaan ku fahmaysaa marka fargeetadaas ugu riixdid ma adko aadna uma jilcano yani hore ma ka burburayso markaas intaas ku filan biyaha ka miiraya weel ku shuba inta ka qaboweyso alaabo kale si diyaarsan u baahanahay inaan isticmaalo qaybta koowaadna waa tan waxa hore u baahanaa waxa waaye soor ama semolina qiyaas waxa waaye hal koob oo wax yar dhiman iyo waxa kale waxa ku haystaa qaando iyo bar oo saliid ah soortan waxaa isticmaali kartaa jaalada ama cadda marka saliidan waxay ka caawinaysaa inaysan isku dhedheegin biyaha iyo soortan waa inay isla ekaadaan bakeeriga aniga isticmaalayo waa kan lagu cabirada loogu talagalay hal ka sareebis oo koob buuxa ah hadda marka asagii oo biyo karkaraya igu jiro inta waa ku qasayaa waan daboolaa marka meel dhigo ugu yaraan 15 daqiiqo ayadoo isdhex gashay oo jilcado bislaatay ku soo baxaysa ama hadaad waxa sameyn kartaa dabka saari kartaa waa karinaysaa si soorta loo kariyo camal ama microwave ka geli kartaa haduu ku yaalo intii ka soo karaysay biyaha gursanayso muddo 1 daqiiqo camal saan u walaaqaya ama calaajinaya kadib waan daboolaa markaan daboolo meel iska dhigaya 15 daqiiqo waxaan isku soo noqonaynaa marka sidii noogu soo baxday 15 daqiiqo kadib haddana waa tan soortii saan noogu soo baxday cabaar markii dilay marka hadda xogaa isdhex gelinaa kadib waxaan u gudgalinaa qaybtii labaad iyo waxyaabaha aan u baahnayno baradhada ku dari lahayn qaybta labaadna waa tan waxa hore u baahan tahay waa bur 2 qaando bur inta igu jirto ama bariis ashiiday waa isticmaali kartaa waxba dhib ma lahan sida baay isticmaalayso kale intana waxa xawaajiye kala nooc ah aniga waxaan isticmaalayaa caleemo qaleel ah iyo basal aan soo shiiday xogaa yar iyo toon iyo sinjibiil isku shiidan waxa kale oo igu jiro maraqyada qudaarta paprika xawaaji dhudhub iyo filfil cad xawaajiyadana waa qaf iyo dooqeeda haddana waxaan u gudgalaynaa qaybtii waxa dhan isku dardari lahayn bataatiga waa kana soo qaboobay hadda waa inaan jijibiyaa marka hore hadaad fargeeta isticmaali kartaa ani waxaan isticmaali rabaa qaandada loogu talagalay bataatiga in lagu jijibiyo hadda waa kana bataatigii waan soo jijibiyay waxa u horeeyaan ku daray waa soortii oo soo qabowday waxa ku xigo xawaajiyada kala nooc ahaayeen waxa kale ku daray kadib 2 qaando oo burka ahayd hadaad rabtid 2 qaando bariis shiidan oo ku darsan kartaa wuxuu ka caawinayaa inuu qaleel noqdo soortan waxay ka dhigaysaa xoogaa wax adag yani jilaac isku dhacay ma noqonayo hadhow marka shiilaysid sidii wuxuu noqonayaa asagoo la mariyay ukun iyo rootiga shiidan oo kale marka iyo soorta nafaqadeedana waa ognahay yani ciyaalka kale aad ugu fiican tahay ani waxaan u bixiyay nafaqo ukun la'aan ah maxaa yeelay bataati iyo soor oo la shiilay maasha Allah ma laga sheekeyn karaa ku dhadhankiisa ka daran hadhow hadda waxaan isugu soo noqonaynaa
markii aan kusoo dhameeyo qasida. haddana waxaan maraynaa qaybta ugu dambeysa, qaybta ka horeysay. xag waxaa ii yaala saxan eber ah. intan waxaan ku haystaa saliid oo gacanta inaan gashto aan ugu talagalay. haddana waxaan ku bilaabayaa inaan suubiyo xabadii ugu horeysay. saliidaan gacanta soo gashtay, kuus yaraan soo qabsaday. daarta adi marka hore waxaa sameyn kartaa kuusas badan oo yaryarha intaa samaysatid meel dhiganaysaa, laakiin aniga saana ay fudud inaan hal mar soo qabto oo kadib hadii wax igu ziyaadaan iska jaro. marka saana u suubiyo xabadii ugu horeysay. mid labaadna haddana ayaan saas oo kale weli gacanteeda saliid leedahay, marka saliid kale uma baahni. saliidda muhiimadeedana waxay ka caawinaysaa inaysan bataatiga iyo soorta iyo waxaan isku soo qastay aysan qalalin. haddii ay qalalaan way kala jabayaan hadhow marka saliid ku ridayso kale. sidaa umaleynaya hadda waa ila fahanteen qaabka loo suubinayo. qaab yaroo waxaa waay dhaadheer ah oo fara camal ah. haddii aad rabtid waa kuskuusi kartaa, haddii aad rabtid dhexda wax ka geli kartaa jiis oo kale markaa kuskuusaysid. haddana waxaan iska arkaynaa markii aan soo dhameeyay. haddana waa kanaa marka dhowr xaba aan kasoo sameeyay. waxaan isku dayay inaan isla ekaysiiyo gacan bini'aadan suubiso. waxa marka way adkaanaysaa inay sidii tahay kusoo baxdo mid kastoo mid kale oo la ekaado. haddana waxaan soo gaarnay qaybta ugu dambeysay. dabka waxaa ii saaran bartaawo saliida ku jirto wayna kululaatay. hadda waxaan ku bilaabayaa inaan ku rido bataatigii aan soo hagaajiyay. dabkan wuu dheer yahay, ma u baahna in dab badan ama inaad gaabisid oo soo sugtid. maxaa yeelay wax kasta way bisil yihiin, inuu gaduuto kaliya u baahan yahay. marka qaybta ugu horeysa idin tusinaya sida kusoo baxayso, kadib waxaan isla arkaynaa markii aan soo dhameeyo. qaybta ugu horeysay aan geliyay waa kana saan kusoo baxay saliidda. marka waa kana marka asagana soo dhamaaday. haddii ay tahay marka ugu horeysa aad soo booqanaysid kanaalkayga oo ku mahadsan tahay soo booqashadaada, fadlan subscribe ii saar. haddii aad hore igula joogtayna like iyo share iyo comment. waana mahadsantihiin. haddana waxaan u gudagalaynaa qaybta sooska aan sameynayay. qaybta koowaad waxaa kaliya waaye ketchup. qaybta labaadna waxay noqonaysaa ketchup iyo yogurt aan isku qasay. waa kana labadii soos oo diyaar ah oona aadka u fudud. haddana waa kana alaabtii oo dhan wada diyaar ah. maasha allah, lagama sheekeyn karo. wax ay diidaysana malaha. qado iyo quraac iyo casho iyo casiriyo boos kasta way galaysaa. waa cunto fuul ah maasha allah. haddana isla aragno siday kusoo baxday. dhexdeeda korkeeda waa isaga jeedin maasha allah. dhexda waa jileec, korkana waa qaleel oo maleysid in lagu suubiyay rootiga qalalan oo kale. waxaa keenayana waa soorta. haddii bariiska kaliya lagu qasi lahaa xoogaa jileeco ahaan lahaa. ka faa'iidaysi wacan idin leeyahay. intaan haysanin ilaahay ha siiyo, inta haysatana allah u siyaadiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum walaalahay qaaliga. waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin. waxaan idin rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin. waa walaashiin Hinda, kanaalka igala socotiin waa Simple Hinda. maanta waxaan la wadaagi rabaa sidaan u hagaajisto timirta. haddana waxaan u gudagalaynaa waxyaabihii aan ka sameeyey. waxa u horeeya u baahan tahay waa timir. timirtana ma ahan
midda aad u adag ama midda aad u jilcan, waa dhexdhexaad. Ani hadda waxaan inta ku haystaa 1 kiilo. waxa kale u baahanahay waa subag aan soo dhalaaliyay aan guri ku samaysto, iyo waxyaabo carfis aniga aan isku dardarsaday. waxayna ka kooban yihiin fennel seeds, xulbo, qarfe, dhagayare, joos iyo heel. qiyaasta aan ka isticmaalayna hadhow isla arki doonaa. hadda waxaan bilaabeynaa inaan lafta ka bixino timirta iyo qolof yar oo afka hore ka saaran. saa ujeedin waa kana xabadii ugu horeysan ka saaray. marka inta hadda ka dhiman kiilo dhan waaye. marka waan soo yareynaa cajalada. waxaan isku soo noqonaynaa markii aan soo dhameeyo insha Allah. waa kana anigoo soo dhameeyay iyo lafihii aan ka baxshayba. marka hadda waxaan bilaabmayo inaan ku daro carfiskii iyo subagii aan rifaaqo oo yani jilciyo. laakiin waxaa ka horeysay inaan gacanta soo gishto gloves. hal gacan kaliya aan ku rifaaqayo aniga. markaas kadibna waxaan sameynayaa timirta dhexda keensanaa saxanka dhexdiisa. kadibna waxaan ku bilaabayaa carfiskii nus qaando. qaandada shaaha kaliya waaye intaan isticmaalayo. kadibna kasir waxaan ugu dari doonaa subaga. kadibna waxaan bilaabayaa inaan rifaaqo. cabaarina qaadanaysa yani muddo qaadanaysa xoogaa ugu yaraan 10 daqiiqo camal in la rifaaqo la isdhex geliyo oo cajiin camal laga soo saaro. marka la socdo wanaagsan waxaan isku dayayaa inaan soo gaagaabiyo. marka waxaan isku soo noqonaynaa markii aan soo dhameeyo rifaaqida ama cajiinida oo timirta. haddana waa tanaha muddo cabaar kadib wax yaraan u dhiman. subagana saa ujeedinba kisir aan ugu darsanayay. marka hadda 3 qayb aan u kala qaybinaa. markaan saan ku dhameeyo markaasaan isku soo noqonaynaa 3 qayb markaan ka dhigo. haddana waa kanaha 3 qayb markaan ka dhigay. hadda waxaan u gudagelaynaa qaybtii ugu dambeysay oo sidaan u habeeyay 3 qayb waan kala qaybiyay. qaybaa badnaanaysa wax yar oo qaybta ugu dambeyso. 2 qaybna way isla eg yihiin. markaas ula socda. hadda waxaan ku bilaabaynaa waxa ugu horeeya aan ku sharaxay. waxa ugu horeeya u baahanahayna waa sisin aan wax yar soo gaduudiyay markii qabowday waaye markii baaqoliga igu jirto. iyo waxa kale u baahanahay qumba shiidan oo qaleel haddana waxaan bilaabaynaa qaybta ugu horeysay sidaan u hagaajiyay 3 qaybood aan usoo kala qaybiyay timirta. waxaan ku bilaabayaa sisinta. marka wax yar aan kuuskuusayaa gacantan kuuskuusaa qiyaasta sida aragtid adiga ka dhigi kartid. ani qiyaas yar aan ka dhigi rabaa. marka xabada ugu horeysa waa kaasa. saasaan ku wadayaa ilaa iyo aan ka soo dhameeyaa kisaan yarta oo cajiinka timirta haddana waa kana qaybtii sisinta saan inoogu soo baxda quruxda badan leh. waxaan u gudagelaynaa hadda qaybtii labaad oo qumbaha aan ku sameynayay. qaybtaana marka hore waan kuuskuusayaa sida markaas sida adiga aragti sameyso. hadaa rabto kuuskuusa marka hore ama yaryareyso qiyaas adiga kugu filan ama qiyaas adiga ka heshay markaas. kadib dhexgeli qumbaha ama sisinta yani labadaba in la sameyn karo ama marka horeba isha ka qiyaasan kartid aadan la wadaagayo.
haddana waa kana qaybtii labaad ee timirta aan soo dhex gelinaya qumbaha. Markaad qaybta ugu dambeysay aan sameynayaa waxbana kuma daray, qaybtan ugu dambeyso kaligeed waaye. waa timirtii iyo subagii iyo carfiskii kaligood. sida ujeedinba sidii kuwii hore leh usoo kuskuusooya iyo qiyaas la eg labadii hore aan soo sameynayay, si hadhow wixii oo dhan isla wada ekaadaan. waxaan isku soo noqonaynaa markii aan soo dhameeyo qaybtan. waa kan ahaa qaybtii ugu dambeysayna sana noogu soo baxday. hadda waxaan bilaabeynaa inaan wixii oo dhan aan hal meel ku wada sharaxo. marka hore waxaan isla arkaynaa saddexda nuucba sidii kusoo baxeen ayagoo meel isla wada yaalo. haddana waa kuwanaha sana noogu soo baxeen quruxda badan maasha Allah. waxaa kasii daran dhadhankeeda, midba midka kale wuu kasii daran yahay. aniga mid waxaan ugu haystaa sisinta. qumbahan soo kale lagama sheekeyn karo, tan caadiga waa la isla wada yaqaanaa. ramadaantii haddii la sameysto marka saan hadaa u sameysatid markasto maasha Allah waaye. ciyaalka saasoo kale casriye looga dhigi, galabtii meeshay ku cuni lahaayeen macmacaan kale ama xalwo kale iyo bedelkeeda galaas caano qandaca lagu siiyo. haddana waxaan soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay oo ah in meel lagu shubo weel. ani waxaan haystaa dhale oo dabool leh, marka weel alla weelka haysta ku shuban kartaa. marka ani qayb aan ugu shubayaa, saf qaaran gelinaya. safka ugu hooseeya waxaan ku bilaabay timirta aan waxba lahayn oo kaligeed ah, kadibna waxaan ku xijinayaa tan oo sisinta leh, kadibna tan qumbaha leh. saasaan ku wadayaa ilaa iyo dhamaad. haddana waa kana sana noogu soo baxday quruxda badan leh maasha Allah. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqanaysid kanaalkayga, waa ku mahadsantahay soo booqashadaada. fadlan subscribe ii saar. haddii aad hore igula joogtayna like iyo share iyo comment. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum walaalay qaaliga ah, waa idin salaamay meel kasta adduunka joogtiin. waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtiin. waa walaashiin Hinda, kanalka igala socotiin waa Simple Hinda. maanta waxaan idin la wadaagi rabaa casriye yar oo fudud oo 1 2 3 ah. haddana waxaan isla arkaynaa waxyaabihii aan ka sameeyey. waxa u horeeya u baahanahayna waxa waaye burkaasi oo diyaarka ah. waxaa la dhahaa puff pastry. ani horena waan usoo geliyey anigoo isticmaalayo malaay iyo qudaar dhexda laga gelinayo isaga. iyo waxaa kaloo u baahanahay cananaas aan soo qalajiyey. iyo waxaa kaloo u baahanahay mirahaas yaryarka ah oo la dhaho cherry. dhowr xabaad ka soo qaatay. iyo inta waxaa yaalo 2 qaando oo sokor ah. sokorta cad daartu isticmaali kartaa. intana waxaan ku haystaa 3 qaando oo batar ah aan si yar u soo jarjaray. haddana waxaan isla arkaynaa qaabkii aan u diyaariyey. inta aan foornada gelin waa alaab foornada lagu sameynayo. puff pastry waa hadda ama burkii ama cajiinkii diyaarka ahay. xaanshadaan wataa, marka ani xaanshada kama fiiqaay saxanka ayadaasaan kor saaranaya. inta xaansho kale saxanka saari lahay waaba loogu talagalay hawl fududeys. marka laab yaroo ku jiray aan toosinaa maadaama cabaar la laabnay. kadib waxaan u guda galaynaa waxyaabihii aan korka ka saari lahay iyo qaabkii aan u kala hormariyay. waxa u horeeyo aan ku bilaabayna waxa waaye cananaaskii aan soo qalajiyey. marka
qayb kastaba cananaaska qayb uu la egyahay aan ku aadinaya 6 xabo hadda ay saarneed saxanka 6daas xabo way la eg tahay cajiinka. haddana waxaan isla arkaynaa alaabihii kale oo ii soo haray sidii aan u soo saaray. sida ujeedeen buu ku soo dhameeyay sokortii iyo subagii mirihii yaryarayna waxaan dhacda ka geliyay cananaaska. sokortii iyo subagana waa isla ekeeyaan inay meelna ku badanin meelna ku yaraanin camal waa u wada qaybiyay saxanka oo dhan. hadda marka waxaan u qaadayaa foornadana hore u sii daaray inta aan diyaarinayay 15 daqiiqo 180 ay joogtaa iyo kor iyo hoos waaye ama fan oven 20 daqiiqan ku yaraysaa kaliya. hadda waa kanaan 20 daqiiqo kadib wuu noo soo bislaaday maasha Allah si yar guduudan oo qurxoon oo ku soo baxay. kadib waan jarjarayaa si isla eg mindi ama waxaa ku jari kartaa birta wax lagu jarjaro burka iyo waxaas. haddana waa kanaha markii aan soo jarjaray bur cananaas laan dhihi karaa doolsho cananaas aan qiina markii hore. hadda laakiin bur cananaas fudud waaye oo shaqo badan ka rabin. haddii aad burka waa samaysan kartaa laakiin qafka heli karta ani waxaan kula tali lahaa burkan diyaarka ah. haddana waxaan isla arkaynaa markii aan saxanka soo saaro. waa kana haddana markii aan saxanka soo saaray ani geeska waxaan ka saari rabaa kareemkan diyaarka ah. haddii arbid jalaato ama ice cream geeska laga saari karaa ama sidiisaba lagu cuni karaa waxba ma diidayo.
waa casriyo fudud oo maxaan ku dhahaa maasha Allah ciyaalkan aad iyo aad uga helayaan galaas caano qandac haddii lagu siiyo. haddii ay tahay marka ugu horeysa soo booqanaysa kanaalkayga waa ku mahadsantahay soo booqashadaada. fadlan subscribe ii saar haddii hore ugula joogtayna like iyo share iyo comment. haddana creamka waxaan ku sharaxayaa mirihii yaryaraayo hadaatay isla arkaynay oo jeeriga la dhaho oo cananaas dhexdaan kasoo geliyay. marka waa kaas sidaan quruxda badan noogu soo baxay. haddii ay idin tilmaamo siduu kusoo baxay dhinaca adeega ama jileecana labadaba ma jiro, waa dhexdhexaad. maxaa yeelay burka asagaaba jilcan, korka marka waxaan ka saaray subag iyo sokor. subagga iyo sokorta waxay u yeelayaan caramel camal. marka wax yaroo waxa waaye maasha Allah qofkii dhadhamsan ka sheekeyn karto. marka la soo tijaabiyo. inta aan haysanin ilaaha siiyo, inta haysatan ilaaha u siyaadiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.